Bismillah, salaamu calaykum. Soo dhawaada walaalahaya. Casharkeenan xakan baynu ka bilaabaynaa. Maalintii hore inoo joogay waxaan idinku yidhi soo dhageysta qofka hadalkan kusoo hadlayna halkan kusoo calaamadiya sax soo siiya ayaan idinku idhi. Walaalihii kasoo shaqeeyay ii soo diray aad bay u mahadsan yihiin, maasha Allah. Casharkan aynu ka bilaabaynaa hadda si walaalihii aan ka shaqeynin ama aan fahmin ay u fahmaan, ay u eegtaan hadduu Alla idmo. Waxaynu ka bilaabaynaa halkan meslek. Meslek waa xirfad. Teersii dawaarle. Meslek waa xirfadda teersii dawaarle. Yaa dawaarle ahaa saddexdan qof. Saynu ognahay kor haddaynu eegno odaygan wuxuu inoo sheegay inuu dawaarle yahay. Marka waxaynu sida meesha ku saxanba Mustafa waa dawaarle. Haddaynu hoos u degno Doğum yeri meesha dhalashada Istanbul. Meesha dhalashada Istanbul ah yaa inagu yidhi Istanbul baan ahay. Wakan. Marka waxaan leenahay Umar. Sax ayaan siinaynaa. Doğum tarihi waqtiga dhalashada, taariikhda dhalashada. Doğum tarihi, taariikhda dhalashada 1992 1992 yaa dhashay. Haddaynu kor u eegno qoraalkeena waxa dhalatay Zeynep. Zeynep ayaa dhalatay. Marka waxaynu siinaynaa Zeynep sax. Zeynep ayaa dhalatay 1992 1992. Telefoon numaraase lambarka telefoonka. Lambarka telefoonka waxa weeyaan halkan 0566 777 20. 0 oo ah eber 566 ama 566 777 ama 777 20. yaa lambarkaa iska lahaa oo inoo sheegay inuu lambarkaa leeyahay. Halkan waxaynu ku aragnaa Zeynep inay tahay qofka lambarkaa iska leh. Hadaynu hoos u degno Zeynep sax waa inaynu siinaa. Waa iyada ayaa lambarkaa iska leh. Meslek xirfadda veteriner caafimaadka xoolaha. Yaa inoo sheegay inuu ka shaqeeyo caafimaadka xoolaha, dhakhtar xoolaad ama dhakhtarka xayawaanka. Isla Zeynep halkan aynu ku aragnaa. Waa inaynu Zeynep sax soo siino. Doğum tarihim, taariikhda dhalashada 25 Ekim 1952. Ekim waa bisha 10aad. 25 Ekim 1952. 25kii bishii 10aad 1952 ama 1952. 25 bishii 10aad
52 yaa dhashay halkan inoo sheegay. Aragnaa kan Mustafa, odayga Mustafa ayaa xilligaa dhashay. Marka isaga sax waynaynu saarno. Sidan hadda waxaynu ku dhamaynay walaaliyan ka soo shaqeyn sidan uga shaqeeyo saddexdii qof waa kuwan. Zainab 3 goor sax leh, Umar oo 1 mar iyo Mustafa oo 2 mar. hoosaynu gudubno. qaybta 9aad injeleyelim tamamlayalem aynu baradno. Injeleyelim aynu baradno, tamamlayalem aynu dhamaystirno. halkan waxaynu ku baranaynaa cashirkeena 9aad wixii jamac ah iyo wixii mufrad ah, yani wixii keligii ah iyo wixii badan. waxa badan iyo waxa keligii ah ayaynu ku baranaynaa. luuqada Turkiga markaad wax badan sheegaysid waxaad raacinaysaa sida khaanadan yar inoogu cad laar ama leer. haddii u dambeyso ereyga, haddii u dambeeyo shaqalka a ama e ama o ama u, laar ayuu qaadanayaa. haddii ereyga u dambeeyo shaqalka ahi e ama i ama o ama u na wuxuu qaadanayaa leer. haddaba aynu barano tusaalaha halkan aynu ku haysano. bir kitaab, kitaabka keliya waxaa la odhanayaa kitaab. waa halka kitaab waxaad odhanaysaa kitaab. laakiin hadduu kitaabki yahay 2 ama 3 ama 4 adigu wixii halka badan, halkan tusaale waxay noogu dhigan 5 kitaab, 5 kitaab. halkan aragnaa 1 2 3 4 5 kitaab baa yaala. 5 kitaab adigu wixii halka badan 2 3 4 5 6 kor u sii kac waxaa laga dhigayaa wax badan. kitaab laar, kitaab laar. maxay u qaadatay laar? waayo halkan a ayaa u dambeysa, waynu aragnaa a ayaa u dambeysa. kitaab a ayaa u dambeysa, ana waxay ku jirtay shaqalada qaadanayay laar. aynu hoos u degno aynu ka shaqeyno halkan. halkan waxaan kusoo qoraynaa bir araba, hal gaadhi. waan soo qoray walaalahay waa kan. bir araba hal gaadhi waxaa la odhanayaa araba. hal gaadhi haddaad aragto araba gaadhi. 2 araba 2 gaadhi iyo wixii kasii badanna maxaa la odhanayaa? aynu soo qornay adana. waan soo qornay waxaa la odhanayaa araba laar. araba laar. laar maxay u qaadatay? waayo a ayaa u dambeysa araba. waad aragtaan halkaa a ayaa u dambeysa. halkanna waxaa ku cad a inay laar qaadanaysay. aynu hoos u sii degno. bir çocuk hal ilmo ama ilmo keliyata waxaa la odhanayaa çocuk. çocuk ilmo. bir çocuk hal ilmo. çocuk waa ilmo. 4 çocuk 4 caruura. çocuklar ayay noqonaysaa. aynu qornay adana. 4 çocuk 4 ilmo. çocuklar caruur. çocuklar
ilmo ama caruur. Halkan waxa u dambeysa uu. Laarna way qaadatay. Sababtay ku dhacday aynu soo eegna halkan. Waynu aragnaa uu ayaa ku jirta. Uuna laar bay qaadanaysay. Sidaa awgeed bay u qaadatay laar. Çocuk laar. Daynu hoos u sii degno. Bir kuş. Bir kuş. Waxa weeyaan shimbir, hal shimbir. Waxaan odhanaynaa kuş. Hal shimbir markay tahay kuş. Kuş hadday hal shimbir tahay kuş. Shimbiro badan hadday yihiin tusaale ahaan 3 baa halkan yaala. 3 waa uuj. Uuj kuş. 3 shimbir waxay noqonayaan markay badan yihiin adigu kow wixii ka badan. Kuşlar. 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 Aynu soo qor. Uç kuş. 3 shimbirood. Kuşlar. Shimbiro. Marka u ayaa u dambeysa. Kuş. U baa ku jirta shaqalka u. Laarna saasay ku qaadatay. Kuşlar. Hoos u sii degnaa. Bir top. Hal kubad. Bir. Waxayaan hal ama kow hal. Bir top. Kubad keliya ama hal kubad. Bir top. Hal kubad. Waxaan odhanaynaa top. Top ayaan leenahay oo ah kubad. Laakiin halkan 4 kubadood baa yaala. Tusaale ahaan 4 waa doort. Door top. 4 kubad. Door top. 4 kubadood waxay noqonayaan toplar. Waxay noqdeen toplar. O'dan ayaa u dambeysa top. Waxa ku jirta shaqalka oo. Laar ayay qaadatay. Waayo halkan waxaynu ku soo aragnay. Jilwadkeena waxaan ku soo aragnay. Oo way ku jirtay laar. Shaqalada qaadanaya. Toplar. Toplar. Tusaalaha ayna siiyeen wada laar ayuu qaatay. Tusaalaha halkan nagu siiyeen waa wada laar. Laakiin haddaad aragtaan kelmaday u dambeyso intan ama i ama uu leer ayay qaadanaysaa. Ama 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 uuna laar ayay qaadanaysaa. Hal tusaale haddaynu keenno leer kelmad qaadanaysa. Halkan ay noogu soo qoray tusaale inoo keenay. Kalim waa qalinka. Waxay noqotay qalimaan badan haddaynu leenahay. Kalimler. Ayaa u dambeysa. Leer ayay qaadatay. Haddaynu casharka hore u sii wadano. Casharka 10aad. Okiyalem aynu akhrino. Okiyalem aynu akhrino. Boş odanes var mı? Boş odanes var mı? Qol maran ma haysaan? Ninkan halkan jooga ayaa u yimi hotel la seexdo. Marka wuxuu weydiinayaa inuu qol bannaan ay hayaan. Marka wuxuu yidhi boş odanes var mı? Qol maran ma haysaan? Wada sheekaysiga wuxuu dhex marayaa Irfaan oo ninkan ah iyo Gorofli oo ah ninkan hodheelka shaqeynaya.
gorofli. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Fiid wanaagsan. Ninkii hudheelka ka shaqeynaya wuxuu yidhi iyi akşamlar. Fiid wanaagsan. Beyefendi, mudane, beyefendi, mudane, hoş geldiniz. Soo dhawow. Hoş bulduk. Waan dhowahay. Acaba, boş, odanes, var mı? Acaba boş odanes var mı? Ma laga yaabaa inaad haysaan qol madhan? Maalesef boş odanes yok. Maalesef waan ka xumahay. Boş odamız yok. Ma hayno qol madhan. Peki waa hagaag. Teşekkür ederim. Waad mahadsan tahay. Hoşça kalın. Nabadeed. Peki teşekkür ederim. Hoşça kalın. maadaama ka waayay hudheelkii qol uu ka tegayaa wuxuu leeyahay waa hagaag. Peki waa hagaag ama okay. Peki waa hagaag. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Nabadeed. Hudheel kaleeto ayuu tegay. Receptionda. Receptionda. Goobta soo dhaweynta. Receptionka goobta soo dhaweynta. Hudheel kaluu tegay. Waa kan ninkii. Irfan waa ninkii. Gorfeelina waa ninkii hudheelkasina ka shaqeynaya. Shaqaalihii receptionka joogay. Irfinda. Merhaba waan ku salaamay. Ninkii hudheelka ka shaqeynayay. Hoşgeldiniz. Soo dhawow. Efendim mudane. Efendim mudane. Beyefendina waa mudane. Buyurun. Boş odanız var mı? Qol bannaan ma haysaan? Ninkii receptionka wuxuu yidhi Hoşgeldiniz efendim buyurun. Soo dhawow mudane. Ninkii Irfan wuxuu yidhi boş odanız var mı? Qol madhan ma haysaan? Ninkii hudheelka wuxuu yidhi evet ha efendim mudane. Ha mudane. Boş odamız var. Qol bannaan waanu haynaa. Lütfen fadlan. Shuu waxay ahayd wixii isaga aan u dhoweyn formulaarkii uu ninka u dhiibayo. Ninkii bay hor taalaa isagoo ma dhowa. Markaa shuu buu leeyahay. Wixii oo ahaa wixii fog buu ahaa. Buu wuxuu ahaa wixii qofka u dhow. Shuuna wuxuu ninku isticmaalay. Ninka hudheel ka shaqeynaya. Formulaarkii ninkii buu hordhigay. Waan aragnaa halkan. Ninkii buu hordhigay. Isaga markaa wax yar bay ka durugsan tahay. Shuu ayuu yidhi. Shuuna waynu soo dhiganay. Shuu iyo buu iyo oo. Sidii loo kala isticmaalay waynu soo dhiganay. Lütfen fadlan şu formu doldurunuz. Buuxi formulaarkan. Irfan wuxuu yidhi teşekkür ederim. Waad mahadsan tahay. Buyurun ku soo dhawow oda numaranız. Qolkaaga lambarkiisu waxa weeyaan 167. 167 167 ama 167. Buyurun oda numaranız 167. Ku soo dhawow qolkaaga lambarkiisu waa 167. Casharkan 11aadna waxaynu ku dhiganaynaa formulaarkii
ninku formulaarkii uu buuxinayay ayaan halkan ku dhiganaynaa. casharka 11aad formuu dolduralem aynu buuxino formulaarka. Utel kayit formuu foomka diiwaangelinta hudheelka. Hotel kayit formuu aad magaca, soyaad magaca faamilka ama magacii aabaha. Doğum yeri meesha u dhalashada. Doğum tarihi taariikhda dhalashada. E-posta emailka. telefoonka ayaa halkaa lagu qorayaa. shahiir magaalada. Ülke wadanka. Giriş tarihi taariikhda soo gelidda. Çekiş tarihi taariikhda bixidda. haddii formulaar lagu dhiibo saasaad u buuxinaysaa. halkana adiga ayaa saxiixayo, halkana qofkii kuu dhiibay ayaa saxiixay. halkan waxaynu ku dhamaynaa casharkan. Kelimelerle karşılıklı konuşalım. waynu soo dhiganay kelmadahan intaynu casharka kusoo dhex jirnay aynu soo marnay. haddaynu dul marno hadda muraajac ahaan bay noo noqonaysaa. Günaydın, subax wanaagsan. Görüşmek üzere, is aragti dambe ama nabadgeliyo. Önemli değil, macno ma laha. Maalesef, waan ka xumahay. İyi geceler, habeen wanaagsan. Hoş bulduk, waan dhowahay. Lütfen, fadlan. İyi akşamlar, fiid wanaagsan. Hoşça kal, nabadey ama nabad ku joog. Özür dilerim, waan ka xumahay. Elfeda, nabadey, buyurun, soo dhowow ama soo soco. ama kaalay buyurun. Değerlendirme, qiimeyn. Waxaa noo dhamaaday buuggii halkaasi ku dhamaaday. imtixaankan warqada xagga u dambeysa waxa weeyaan isqiimeynta casharadii aad soo dhigatay heerkaad ka joogtid. insha Allah halkan baynu ku joojinaynaa. buuggii saasoo ku dhamaaday hadda. imtixaanka warqada u dambeysa idinkaan idiin daynayaa ilaa bisha Ramadaan oo dhan baad haysataan. kasoo shaqeeya imtixaankaas. bisha Ramadaan markay dhamaato insha Allah ayaynu bilaabaynaa buugga labaad A2. insha Allah inta Ramadaan ka dhamaanayso ee laga gaadhayo buugga labaad aynu bilaabayno A2. waxaan inoo soo gelinayaa channelka casharo Ramadaanta ku saabsan iyo isku hambaliyeynta sida ciida iyo Ramadaanta isku hambaliyeyntooda. markaan insha Allah waqti u helno ayaan soo gelinaynaa casharkaas. waayo bisha Ramadaan waad ogtiin waa bil cibaado, wax kale in lagu mashquulo maahan cibaado ahayn. laakiin kusoo dadaalayna soo geliya casharkaas hambaliyada. idinkana dhammaan ardaydii la socotay casharkan A1 buuggii koobaad halkaasuu ku dhamaaday. imtixaanka u dambeeya waxaan rajeynayaa inaad kasoo wada shaqeysaan dhammaantiin inaad ii soo gudbisaan. ardayda haysta buuggiina kaga shaqeeya. ardayda haysta PDF-ka kaga soo shaqeeya. soo sawira waxaad soo qorteen
igu soo dira Instagram-ka ama Telegram-ka. Intaynu kaga kulmi doonaa cashar kale oo cusubna anoo idinku hambalyeynaayo bisha Ramadaan. Ilaahay nabad qab ha inagu gaarsiiyo, kuwii ka faa'iidaystana Allah inaga dhigo dhammaanteen. Waxaan idin leeyahay fi amaanillaah, Allah ha ismaaladeeg. Wassalaamu calaykum.